taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Sahal Cabdullaahi Cumar oo wehelinaya taliyaha sektarka koowaad ee howlgalka Afrika ee taageerada iyo xasiloonida Soomaaliya ee USOM saraakiil ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeer ku tagay deegaanada dhaca gobolka Shabeellada Hoose. goobaha uu taliyaha gaaray waxaa qayb ka ah deegaano kaabiga ku haya degmada Owdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. taliyaha ayaa booqday dhammaan goobaha kala duwan oo ay ciidamadu howlgallada ka wadaan waxa uuna bogaadiyay guulaha ay gaareen geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidaas oo kale ciidamada qaybta ka ah howlgalka USOM jabka culus ay gaarsiiyeen khawaarijta. geesta kale taliyaha ayaa geesiyada isgarabsanaya faray inay soo afjaraan goobaha ay gabaadka ka dhiganayaan cadowga waxuuna kulamo gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa qaybta ka ah howlgalka USOM. gobolka Shabeellada Hoose waxaa si dardar leh kaga soconaya wajiga saddexaad howlgalka duufaanta aamusan kaas oo khawaarijta jab culus lagu gaarsiiyay isla markaasna goobo dhowr ah oo gabaad ay ka dhiganayeen markaasi laga saaray. howlgalladii ugu dambeeyay si wada jir ah u fuliyeen geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidaas oo kale ciidamada ka socda USOM waxa uu ahaa kuwa jab culus lagu gaarsiiyay khawaarijta isla markaasna looga dilay maleeshiyad iyo horjoogayaal dhowr ah.